السلام عليكم ciyaarta sharafta leh maanta waxaan ka hadli doonaa blockchain iyo dhaqaalaha iyo waxa iska khuseeyo iyo sida annaga ay faa'iido noogu leedahay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inaad ka faa'iidaysatiin suuqyada caalamka sida suuqa Dubai, Australia, Canada, meelaha dhaqaalaha ugu waaweyn adduunyada sida u socotiinba dhaqaala يعني aad dhaqaalahooda aad dhibaato ugu timid sida Dubai oo kaleeto stoga Dubai oo kaleeto labadii bilo ugu dambeysay 20 ilaa 15% hoos u dhacay ma ahan kaliya gurya ma ahan kaliya stoga kaliya marka waa akhriya aniga marka ma raba inaan videoga u dheeraado maadaama waqtigiina qaaliga ila wadaagaysiin waa si akhri kartiin waxaana warbixinta ku saabsan in khasaaradii dhacday 2018 ay ka xun tahay waxa hadda ku dhacay Dubai xitaa 2018 fiicneed sidoo kaleeto guryaha Dubai oo kaleeto yani aad iyo aad ay hoos ugu dhaceen waa arkaysiin waliba hoosaysay adan ilaa ay 2020 sida ay sheegeen dadka dhaqaalaha haddana qofkii guriga Dubai ka gata inuu rabo inuu Dubai guri ka gato maanta guriga jooga maanta 100,000 laba sano ka hor 200,000 joogo macnaheedu waxa waaye 50% yaa hoos u dhacay ama boqolkiiba 50 oo lumiyeen guryaha qiimahooda especially Dubai sida arkaysiin Australia oo kalentana iyadana waatana warbixinteeda waa akhriyay weegi kaliya Australia waxay lumihayeen since 2017 Agosto ilaa hadda weegi kaliya $1,000 ayaa guryaha qaarkood ka lumay weegi bis macnaheedu bishii $5,000 ay lumihayn almost boqolkiiba 40 ayay hoos u dhaceen boqolkiiba 60 waay boqolkiiba 60 ayay hoos u dhaceen guryaha Australia iyadana sidoo kaleeto Canada iyadana sidoo kaleeto Canada iyadana waa kana arkaysiin oo aad iyo aad iyadana boqolkiiba 30 ay maraysaa wali oo ku sii socota dhaqaale xumada bangigan ayaa ka qoray UBS asagana waa galay bangiga UBS يعني warbixintaas dhan aan soo akhriyay bangiga UBS markaan galanay warbixintaas dhan waxay noqotay hadal saxiix ah oo bangigan waa bangi caalamka oo dhan ku yaalo oo ka qor guryaha arrimaha guryaha iyo arrimaha dhaqaalaha iyo waxyaabahaas dhan qoro marka waxaan ku bixinay hadda blockchain-ka markii ay dhaqaale xumo iyo problem iyo meelahan ka socoto blockchain-ka shirkadaha way sii kacayeen marba marka ka dambeyso dadka blockchain-ka soo galaan way badanayeen shirkadaha inay yani aad iyo aad u daneynayeen way sii badanayeen almost boqolka company hadda yani aad iyo aad active-ka u ah waxaa ka mid ah Wave, T0 qaarkii waa taqaaniin qaarkii ma taqaaniin waa kulli waa kuwana Stratus, Steam oo kaleeto smart contract company kasta oo blockchain oo yani aad iyo aad qiimo u leh maanta halkaan ku jira Power Ledger Nano waa kan oo kaleeto Ledger Nano waa Ledger Wallet markaysiino Ledger Wallet waa ogtiin waa haysatiin ba waxa ku kaysatiin maasha Allah walaalkeen sayida wax badan ka hadlay aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa asagana faa'iido oo noogu faa'iideey Genesis mining oo kaleeto Bitcoin ka mining lagu sameeyaa Gemini asna kaleeto waa exchange ee Mareykanka ku yaalo kulli waa kana Factum asagana Homeland Security-ga ayuu identity-ga ka saacidi doonaa waaxda immigration-ka ee Mareykanka way asna kulli waxaan dhan aqoona ay blockchain marka waliba taas waxa sii dheer casharada blockchain-ka 2 sano 3 sano ka hor dadka markii blockchain ama Bitcoin la yiraahdo way kugu qoslayeen waxaas tuugo way ku dhahayn maantana waxa la marayaa blockchain iska dhaaf kambaniyadii in jaamacadihii ugu soreeyay adduunyada lagu soo daray casharada blockchain-ka oo jaamacadihii la isku baray iskuulaadkii ayaa lagu soo baray ilmihi marka waa arkaysan jaamacadda Oxford iyadana waxay bixinaysaa casharo oo blockchain-ka quseeyo blockchain oo ogtiin blockchain iyo Bitcoin waa walaalo sida ula socotiinba insha Allah cashirkeena meeshaas aan kusoo gudbinaynaa marka insha Allah waxaad ku dani doonaa in yar oo ah dadka dhaqaaliyahanka oo aad dhaqaalaha uga hadlo waxay sheegayaan dhaqaale xumo aad iyo aad soo wajahan oo especially soo wajahan inay imaan doonto marka haddii marka guryihiina aad u dhaceen lacagihiina meel kale oo la geeyay aan la haynin dahabkiina maanta shay la qaadi karo uusan haynin silfarka qofkii 100 kiilo dahab oo ma qaadi karin
laakiin qofka boqol 2 milyan oo dollar oo bitcoin ee waraqad yar uu ku qoraa jeebka u gashaa ama maskaxdiisa ku qoraa numberka maskaxdiisa ku xifdiya so 100 milyan jeeb qalbiga ku wadataa numberkii haysataa ama meel uu kugu qoran yahay diyaaradda la raacaysaa culays ma jiro waxa ma jiro so marka haddii dhaqaale xumo timaado meesha u fudud in la aado waa blockchain-ka waxaana daliil idii ah wax walba oo meel walba oo loo socdo jaamacadaha la isku baraa ardayda maanta jaamacadaha dhigto waxaa loo tababarayaa in mustaqbalka ay wax qabtaan blockchain-kani waxaa hadda ardayda loo barayaa mustaqbalka inay isticmaalaan marka taasuu ogaada ninkan asna Mark Maloney la dhahaa aad oo dhaqaale uga hadlaa oo lacagaha iyo dhibaatooyinkii leeyihiin inflationkii aad uga hadlaa marka insha allahne cashirkeena maanta intaas kusoo gabagabaynaynaa haddii ay jiraan cashiro kale oo aad rabtiin inaad la wadaagna waa idla soo wadaagaynaa iyada aljazeera xitaa way ka qortay aljazeera xitaa way ka qortay waa arkaysiin waa kanaalka aljazeera marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaan wixii kale oo macluumaad aan idla soo wadaagno kanaalkane idinkana si ugu faa'iidaysatiin like subscribe na saar fadlan hadda awoodana wax comment iigu qor si aan ama coin alla coinka adiga aad rabtid meesha comment iigu qor waa soo bara wixii aan markaas aqoonteeda ama tabarteeda kula soo wadaaga wabillahi tawfiiq wa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh